بح إخوان الصدقة عجائب هذا وحكمه هو مركز مقاشيب يعني نفط هذا وحيد دم عيسى وحك صوتها شيئنا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيسته وحك بدن بإلهي أقوبتنا هل دول هذا بحسه كمنان دول بإلهي أقوبتنا حقيقة وين وحدليل عائشة رضي الله عنها gabadha muslimka ay badagayso waa ummul mu'miniin waa qofka aad rabto ayadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho ma kamid ah ayadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khumus ah waa 2 xabo oo canjeela ama jabaati ama rooti oo taqana ayaa miskiin baa guriga ku soo garaacay gabar khaadimadoo la joogtay bay albaabka u fur waayo way furtay waa miskiin sita xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay saytiri waayo سيتوا مسكين كله سيتحبك كرسي سيت يا أم المؤمنين ما نقول بواحد هي سطوع إنتاج بحسه يهدون وحلو إذا واحد كأفرت إذا سيت أزوج كداعي سي حبت كبي قاعدة ويسيس حوجها كذب أيها قف كلا الباب صاقر قراعي بالفيري ومسكين كلا هذا مسكين كلا محارسي أو صدق حال الله كتاعي جودي بقى الباب كفتي وحتى جنين أضانا أو هو ذا طبق صحن وين oo neef ari ah waxa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue ana wnaqaana sagdan la solay oo root dusha ka saaran yahay tira badan rasuul wuxuu yiri ehelkayga reerkayga waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadha ay soo qaaday Aisha inta qasashay waxay tiri un wa khubzun khayrun min khubziki wa khubz ka khayr badan khubzkaaga un ilaahay agtiisu keen ilaahay waa soo diray tabaaraka wa ta'ala هذا الكافير بالعجيب وعائشة لبدا هيستين اي بخصي انتاس او روت اي هلي با لوغو بدلay hadaa dhibaato ku hayso ama faqri ku hayo ama waxyaraan ku haysto Aisha ku day wax haysatay bixi wax ka badan Ilaahay ku siin waxyaabaha sadaqadu sameeyay waxa kamida waa mas'alo aan islaayahay wallahi maanta dad badan oo muslimiin ah Allah daawu barqakum bisadaqa qofka jirtan sadaqa ku daaweeye waliga حديث النبي انت بقى صلى الله عليه وسلم سوق كاجرين يahay ما قصد inaad ku daawayso sadaqo sida nabiga صلى الله عليه وسلم waxa dhacday imaam al-hakim abu abdullah al-hakim qisooyin kan sheegay inta badan qofka raba wuxuu ka akhrisan karaa kitaab leeyahay min ajaa'ib as-sadaqa wajiba oo sadaqada si ajiib uga sheekeynay abdullah imaam abu abdullah al-hakim ayaa jiray wajiga waxa ka soo baxay boogo marka isbitaal dhakhtar buutay wax ka soo sameeyay daawa loo waayay maalmaha kamida asagoo darsi akhrinaya wajiga la dhacaamay oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxa arkay wuxuu soo galay masaajid Abu Uthman as-Sabuni uu darsi ka akhrinay sheekha aqeedada caanka ku ahaa kutubka aqeedada iyo firaq bid'a in la dagaalamo markuu soo galay wuxuu yiri imaam Abu Uthman as-Sabuni wuxuu yiri udduceeya imaam Abu Abdullah al-Hakim ilaahay caafiyo dadka waxay leeyihiin ilaahay caafiyo asagoo subaxii dambe darsi xadiis sheekhi akhrinay ayaa waraaq waa hortiisa lagu soo furay waraaqdii uu furay waxa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxa ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam fiyan ku arkay ajiib markaasuu nabigu wuxuu yiri waxaad ku tiraahdaa Abu Abdullah al-Hakim waxaad ku dhahdaa يوسع الماء للمسلمين المسلمين تبيها حصيه بيها صدقيس شيخ الدرس يجيبوا دميه مركو دميهي ايو كعي غريس دربيgu soo wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaal u yeelay biyaa lagu shubay dariskii baa ka cabay wallahi todoba bari kadib boogii way dhamaadeen way baabeen ajiib maanta qofka muslimka waxa haysta kansar waxa haysta xanuun waxa haysta dhiigkar waxa ku haya xanuun kasta diabetic sokor baa ku haysa xanuun kasta ku haya xanuun ma ku haya حديث النبي انتهت آمن تداوى مرضاكم بصدقة بالفيركم صدقة بحصو بحث إلهي أسوء الداوية بالأرك دونتا وين أعظم مرة بضن بين أعظم قصوي الحديث أبعد دعيه وهذا وقتها نجوغا وحال أعظم قصة عجيبة لو عنو يرير أول علىها عيارة أيام متكم إذا إكتوا إيشا وحاكد دالي قري وحبا كتشوى إيشا وإن عاميسا وحبا كجرة دخاتيرتي لو جاي oo dhan way ka baqeen isha meesha madoway dhakhtarkaas wuxuu leeyahay anu cajiib ma taaban karo waa khatar isha haddaan taabto isha uu beelaya cunug
hooyadii way iska oyday way dhibaatood cunugii ma seexan karo indhihii biyaa ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yidhi sallallahu alayhi wasallam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisa sadaqa weyn bay bixisa waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check-up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yidhi bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobaynaya inaan qabo markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taabtaabtay wixii oo cadda furtuq ka soo yidhi bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sallallahu alayhi wasallam cajiib wey ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sallallahu alayhi wasallam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadsa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoonaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaaba yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caankaa ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akhrinaya oo fadhiya ayaa waxaa u soo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayey beerta taayirada waaweyn oo loo jido oo lagu falayo ayaa ku duldhacay sheekhii wuu fekeray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ahaa kitaabka akhriya wuxuu yidhi wad darsiga sii wada wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddee la yidhi ilmahaagii baa balaaya ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso maxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinnay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabay awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka miskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu albalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiiraahda haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimka ah inuu dareemo fadliga ay sadaqadu leedahay daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekh ayaa wuxuu qoray wuxuu yahay anoo meel nin macallimiinta ka mid oo ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yahay waxaa ii yimid inuu yaroo ordayo oo miskiin markaasuu yaa cam adeerow waxaad i siisaa 10 riyaal 5 riyaal wax isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday wuxuu ku galay makhaayad buu galay wuxuu anoo cunuga weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yidhi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay waddamada muslimiin taxi waa la soo sheekeeyaa markaan xoogaa soconnay ninkii taxiilaha baa i caayay ورنا هذه النحو باكر أضع كلام مقام يقدر تكسر ورنا هذه محل قرطة وني خبيث باكر النحو باكر واستقال لي وحائرني وهاي العكتي يعد وكاهر يعني عكتي ويسوع لي وسوقته وسول له جاي ماشي عن تكسر كسر عني بعد أنا وحي حناقص واستشيني أن ماشي إنك باقول كلام صار والله وحي ما كان حوجات كذب سوعني يا وحن أنمي بابور كيو توب قدومي أو وجبتي أفرتي من يدرول في شنتي وقت انتهى وحان فهمي بنيري صدقة إلي بقى إلى صوصات إغرب
musiibadaas akhi waxaa xasuusataa maanta waxbaa sadaqaysanaysa aduu ma ogin waxaa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaado musiibo carruurta inaad kaga badbaado jirro xun inaad kaga badbaado dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaado waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insurance-ga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay u xafiyey waxaan ku soo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilaahay wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku beddelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horraysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad faraxsan oo habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkeyga oo habeenkii aad ku lahayd nolosha wey oo faraxsan ayaa albaab kale miskiin ku soo gargaraa gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waa ay suuya qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiye markaasay tiri waa miskiin tuugsanayo suuyada baxdhe cayri saacadaan oo kale iyo albaabada laisku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhii waxay tiri niha or naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegey isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisi waa iskhilaafay muddo waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayoo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacay markii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo lacagtaana ugu dar maxaan kuu qabaa naad u baahan tahay nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa la rabaa inay farxdo soo maha iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiigay wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhaco la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka miskiinkaoo albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray